bismillaahi raxmaani raxiim saaxiibayaal muuqaal kale cusub ayaan idin haynaa. Madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo eedeyn balaaran dusha loo saaray dadkii shalay taageersanaa oo kusoo jeestay Ikraan Tahliil hooyadeeda oo mar kale soo laba kacleysay iyadoo dhaqankii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ku eedeyn jirtay inay yihiin dad gacan ku dhiiglayaal ah. taasi bedelkeeda maanta xasan sheekh maxamuud ay eedeynaysaa. barnaamijka waxaan kusoo qaadan doonaa qodobyadaas iyo kuwo kale. haddii aad kanaalka cusub tahay fadlan subscribe saar, muuqaalkan like garee. aan ku bilownay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo tolkii shalay isaga qabyaalad ahaan ku taageerayay oo kusoo jeestay iyo xaqii Farmaajo laga galay oo dib u soo daahiray, maadaama dulmiga mar walba uu soo daahiro qofka xaqa lehna xaqiisa uusan weyneynin. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Fahad Yaasiin oo kursigan muddo 5 sano ah ku fadhiyay ayaa inta badan lagu eedeyn jiray dhacdooyin kala duwan ee dalka ka dhaca. maanta xaqii ay Farmaajo lahaa banaanka ayuu yaalaa, dulmigiina wuu soo daahiray. bulshada Soomaaliyeed waxaa u kala cadaaday dhammaan waxyaabihii marka hore lagu dulmiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo saaxiibkiisa Fahad Yaasiin. Fahad Yaasiin ayaa markii hore waxaa lagu eedeynayay inuu ka dambeeyay kiiskii baraha bulshada ee Soomaalida iyo dhammaan meediyaha Soomaalida qabsaday ee Ikraan Tahliil. ugu dambeyn wuu soo naasacadaaday, waxaana la ogaaday kiiskaasi inuu ka dambeeyay ninka lagu magacaabo haatana agaasimaha NISA ee Mahad Salaad. haddii ay wax walba noocaan yihiin, madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo Fahad Yaasiin kaambeynka ay ku soo galeen in Ikraan Tahliil ay cadaalad u raadin doonaan waa sida iyaga hadalka u dhigeen. maxaa laga hayaa? maxaase ka soo qeylsiiyay hooyo qaali oo ah hooyada dhashay Ikraan Tahliil. dhibaatooyinka ugu waaweyn ee maanta xasan sheekh maxamuud haysta ay ka mid tahay sidoo kale Fahad Yaasiin sawaha ugu aamusay kiiskaasi goor hore ayuu uga hadlay. ma rabno inaan ku soo celino, aan ka soo qaato hal qodob oo ahaa oo aad u muhiimsanaa. wuxuu yiri hooyo qaaliska aamus kiiskaaga inaga ayaa gacanta ku hayn. isaguna wuxuu sheegay in ay meediyaha tagtay ay isla markii banaanka soo bixisay, taasi darteedina ugu aamusay kiiskeedina sidaas ugu burburay, maadaama kiis la keenay meediyaha uusan wax laga qaban karin. si kasto oo xaq u leeyahay xitaa kiiskaasi lama baari karo oo waji kale ayuu yeelanayaa. taasi waa sababta dhalisay Ikraan Tahliil in kiiskeedii Fahad Yaasiin iyo kooxdiisa ama markaasi meeshaas hayay inay indhaha ka laabtaan. hooyo qaali oo dhowr mar loo sheegay looguna digay inay meediyaha ka hadasho. haatan xasan sheekh maxamuud wax ma u qaban doonaa misana sidii oo shalay ay cadaalad daro madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu eedeynayay ayaa ku dhici doonto. waxyaabaha aadka loola yaabo waxaa ka mid ah dadkii shalay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhaliilsanaa oo weliba si qabyaaladaysan ugu soo horjeeday, kana mid ahaa dadkii badbaado qaran soo saaray in ay maanta xasan sheekh maxamuud ka soo horjeestaan. sababaha iyaga hadda inta badan ay u dhaleeceynayaan xasan sheekh maxamuud waxaa ka mid ah in ay xilki ugu muhiimsanaa ka waayeen dowladda. taasi ayaana dhalisay inay mucaaradnimo. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mar hore ayuu noo sheegay inuu isagu patriotismka ama habka wadaniyada isagu wax ku maamuli doono, qabyaaladina halkaas laga saari doono. haddii qabyaalada lagu sii socdo dalkan 1991 ayuu u laaban doonaa. waa sida ay aaminsan yihiin in badan oo ka mid ah falanqeeyaasha siyaasadda dalka, maadaama wadankani uu muddo 28 sano ilaa ay ku dhawaad 30 sano uu burbursan yahay, lana leeyahay dowlad markaasi u hogaamiso. waxaa u soo dhawaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa siday aaminsan yihiin dad badan, laakiin hogaankii ugu fiicnaa abid iyo shaqsiga ugu wanaagsanaa maadaama uu ku guuleystay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 80% ay yihiin shacabka Soomaaliyeed ku raacsan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Farmaajo ayaa arintaani wax ka bedeli kara oo Soomaaliya ay ku jirto. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhawaanahan waxaa la filayaa inuu dalka Turkiga aado, halkaasi oo shir kula soo qaato dhammaan xisbiga nabad iyo nolol, iyadoo taasi ay wada hadli doonaan xaaladda dalka
oo meesha ugu cakirsaneed marayso sababtoo ah xasan sheekh maxamuud dowladdan wuxuu ku soo dhisay qabyaalad maadaama wax walba UPD-da uu ku soo koobay ra'iisul wasaaraha waa UPD duqa magaalada Muqdisho waa UPD dhammaan ra'iisul wasaaraha cid uu keenayna waa la ogyahay markii la dhisayo xukuumadna dad iyaga ka amar qaata ayaa la keenaa markii la arko 4.5 inaysan waxba tareenin oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hore ugu hadlay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa go'aankiisa ugu weyn wuxuu ahaa in 4.5 la bahdilo dadka Soomaaliyeed ay afkooda wax ku doortaan xasan sheekh maxamuudna waxa sabab ogolo wuxuu jecel yahay isaga qabyaalada iyo qofku isaga uu kaysto iyo jeebka inuu buuxsado oo meesha ka tago waxyaabaha aadka loo leeyahay waxa kamid ahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dadkii shalay dhaliilsanaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyagoo laftigooda muusan u diidin xil laakiin waxa ay ku dhaliilayeen ma aysan ahayn qarannimo ee waxay ahayd qabyaalad dad badan oo kamid ah waxay dhahaan magaalada Muqdisho madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxba kama yaalo oo xamar anaga ayaa iska leh taasi bedelkeeda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo wax dagaal ah waxyaabahaasna muujinin oo dhowr mar u tanaasulay dalkiisa maadaama madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uusan qabyaalad shaqo ku laheenin haatan inta badan waxay ku eedeynayeen dadka isaga ka soo horjeeday ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu yahay كليتلس أم علوشيس وشخصت تاسي بدل كذا ما أنت حسن شيخ محمود أي يو جد هان وأورتين مريهودين هاد أي قرنا يعني واللي لما مقال مدحويني محمد عبد الله فرماجو أو رهايو أنا قبيل كي يا لشريا أو رقنص حوكالية أو ملهول أيان شركو خوانينا لكن مدحويني حسن شيخ محمود إن بدن وحكوها رجني يسوق رهايو تلكي سوعنايو كالي halkan ayaa shir ku leenahay isagoo hotel ugu wacay magaalada Muqdisho dadkiisa taasina waxay ceebin ku ahayd iyo gaf qaranka Soomaaliyeed maadaama Xasan Sheekh Maxamuud oo ay qaran dhan sugayaan hadana uu wacdo qabiil yar isagoo muusan u wacanin UPD hadii la dhihi lahaa shacabka Soomaaliyeed ay u wacday waxa ay noqon lahayd laakiin inuu tulkiisu wacdo dhaho warkaalay halkan shir balaaran ayaa ku leenahay oo tolkay sidee farmaajo aan filada ugu saari karnaa taasi waa waxyaabaha aan ikri karin ee magaalada Muqdisho ka socdo sidoo kale ciidamadii shalay isagu u beeniyay in Eritrea jiraan oo isagu ish soo saaray hadii arrinta ay sidaas tahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ma ahan mid la aamini karo cid walba inuu ogtahay oo ay ka warqabtaa sababtoo ah muuqaalada ku jiro baraha bulshada waa kuwa history ama sheeko kale leh hadii la dhaho qabiil ayaa lagu taageerayaa qaran ma dhismayo dadka Soomaaliyeed waxa uu muhiimsan inay raacaan patriotism-ka oo ah wadada kaliya lagu heli karo in muwaadinka uusan ka weyneyn ay isla wada raadiyaan wadada saxda ah ee doorashada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la filayaa hadii hadda uu soo laabto in la gaari karo qof cod doorasho ah shacabka Soomaaliyeed ay xur iyo xalaal wax u dooranayaan doorashan oo noocaas ah in la helana madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa keeni karo saaxiib yaal inta badan waxaan aragnaa commentiyo ah in anagu aan ahay qarandumis waxa idinka cudur daaranaynaa anaga maniin qarandumis waxa rabnaa inuu qaranka dhismo waxyaabaha ka sheekeynayno dhanna waa waxyaabo waaqici oo dhacay ma ahan inaad anaga hadalkeena qabyaalad ama sheekooyin kale u gudisaan aad iyo aad u mahadsantihiin la jaan qaadka muuqaalada aan soo gelino hadii aad kanaalkan ku cusubtiin waxa idinka codsanaynaa inaad subscribe saartaan muuqaalka like gareysaan waa idinka mahad celinayna joogitaankiina quruxu badan inta aan muuqaal noocaan ah kulmeeno sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuhu